ciidanka Kenya ayaa mar kale shacab Soomaaliyeed ku xasuuqay xadka labada dal xilli halkaas ay u jeesteen ciidanka gorgor ee ku sugan gobolka Gado. Wararkan ka helayno deegaan hoostaga degmada Balad Xaabo ee gobolka Gado isla markaana ku yaala xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ayaa waxa laga soo sheegayaa in ciidamo ka tirsan Kenya ay dad rayida ku waxyeelayeen halkaasi. ciidamada Kenya oo maalmihii la soo dhaafay soo gaaray deegaankaasi ayaa waxa la sheegay in isku dayaan inay sameeyaan dhul ballaarsi isla markaana dadka deegaanka ay ka hortagaan arrintaasi. waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa gorgor ay u jihaysteen, waxaana laga cabsi qabaa in halkaas uu dagaal ku dhexmaro ciidanka gorgor iyo sidoo kale kuwa Kenya. taliyaha ciidanka xoogga General Odwa Yusuf Raage ayaa markii horeysay waxa uu saraakiisha ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Gado ku baaqay inay ka hortagaan falalka guracan ee ciidamada Kenya marmarka qaar ay ka geystaan xadka labada dal. ciidamada Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay xoojiyay howlgallo iyo sidoo kale dhibaato ay u geysanayaan dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee ku sugan dalkooda. dowladda Kenya ayaa weli aan ka joogsan inay dhibaatayso shacabka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo markii horeysay sheegay in uu dib u furi doono xuduudda uu la wadaago Soomaaliya, iyadoo dadka qaar taasi ay ku macnay inay tahay qorshaha dowladda Kenya ay ka leedahay Soomaaliya. Soomaaliya iyo Kenya ayaa xilligan waxaa xiriirkoodu yahay mid cusub maadaama dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay madaxda ay dowladda Kenya ka bursay Soomaaliya isla markaana u sheegtay in ay Soomaaliya ku lahayn wax saameyn ah, isla markaana safiirkeeda laga raacday magaalada Muqdisho. tani markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isku dayay in uu dib u furo ganacsigii Soomaaliya ila lahaayeen isla markaana ay u soo doofiyaan qaadka, balse tallaabadaasi ayaa waxaa la sheegay inay suurageli weysay kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu shuruud adag ku xiray dowladda dalka Kenya. waxaana qorshaha ahaa in 5 bishan Julaayo la saxiixo heshiiska ganacsiga u dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya, balse waxaa la sheegay in shuruudda uu soo bandhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay suuragelin weysay arrintaasi.